25 bishii toddobaad 2023 ayay ahayd markii aanu baahinay muuqaalka Raxmayr oo runtii ah mid argagaxle. Raxmayr waxa asibay xanuunka kansarka waxa aanay maalinta Raxmayr family-geedu ummadda Islaamka ka codsadeen in ay soo caawiyaan Raxmayr si loo geeyo dhakhtar dalka dibadiisa. Haddaba waqti xaadirkan Raxmayr iyo family-geedu waxa ay ku sugan yihiin dalka Itoobiya waxa aanay u joogaan xaalad caafimaad. Waatan Raxmayr ayadeedu ka warbixinaysa xaaladda ay ku sugan tahay Raxmayr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتي يا ريت وأنا جالس بجيني دكتور كيمان جيني بسكون بالجليي أفر سدح بين كل شرني وين قصوا صارين وحنا دكتور كي وينا يعني دين قدرنا مركورا دكتور وين وان مريني مرة بعد بردك علينا نبيل هذا إنه البضاعة هيك قاعدة نساهم كا دكتور كي وين دوّرنا كا. haddaba Sahra Maxamed oo ah Raxmayr ayadeed waxa ay ummadda Islaamka ugu mahadcelinaysaa sida ay markii hore u soo caawiyeen waxa ay kale oo ay ka codsanaysaa in wixii ay ku soo caawiyeen ay noqotay dhakhtarkii koobaad balse mar labaad ay u baahan yihiin in la soo caawiyo si Raxmayr xaaladdeeda looga gungaadho. muslimiintii markii hore inta yar soo caawisay imkan waxaan ka doonaynaa inayna soo caawiyaan oo nala socda. haddaba walaal wixii aad ku caawin karto ekraankaaga ugu dir telefoonada shaashada kaaga muuqda.